guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo gudagalay saacadihiisii ugu dambeeyay ee uu ku diiwaan gelinayo musharaxiinta u taagan xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa maanta shahaadadiisa guddoonsiiyay musharaxnimo Cabdiraxmaan Aadan Sabriye taasoo cadeynaysa inuu yahay musharax xaq u leh in uu tartamo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaana guddoonsiiyay shahaadada. intaas kadib musharax madaxweyne dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Cabdiraxmaan Aadan Sabriye ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay in maanta loo baahan yahay bulshaweynta Galmudug in laga badbaadiyo halis kasta oo ku imaan karta maamulkooda sida daraadeedna musharaxiinta saaxiibadiisa wuxuu ugu baaqay inay isu diyaariyaan si ay uga qayb noqon lahaayeen tartanka furan. marka hore waxaan mahad oo idin iskale Ilaahay waxa kale oo mahad celinaya guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Galmudug oo maanta aan iska diiwaan geliyay aan shahaadadina ay siiyay anoo ku rajaweyn inaan ku guuleysto. musharaxiinta kale oo Galmudug waxaan u sheegayaa anigu waxaan ahay ninka ugu fulisan oo marka hore iska carrameesh 8 maalmood waa ka maqnaa umayna kadibna waxay ii cadaatay in howl ku sugaysa inaad wax ka qabato ama ka qayb qaadato inaan laga fursan karin. waxaan ugu baaqayaa marka walaalahay waxaan ugu baaqayaa inay yimaadaan registration ka sameeyaan dood waxay qabaan oo xaqiiqo ah run ah miiska ay saaraan. aniga marka hore waxaan ugu carray sababtoo ah sheegay markaan dhowr meel la sheekaystay oo arkay in xogaa khilaaf farba uu jira khilaafkan ka carray khilaafkan lagama carrar karo bini'aadamka waa la abuuray khilaaf oo ayad quraan oo sheegaysa oo la walaasha rabbaka la jacala naas ummatan waahida wala yazaalun mukhtalifin laakiin waxa loo baahan yahay khilaafka sal waxaliya xalka wax loo haysto xalka hadii la carrar sidii marka hore aan sameey amal xal la gaari maayo nin walba dhinaca uu carrar xalku wuxuu ku jira in la wada hadlo xalku wuxuu ku jira in la wada fadhiisto la wada falanqeeyo oo arinta si kasta loo fiiriyo ayadoo Ilaahay tala saaranayo inuu tawfiiq Alle noo waafajiyo. waxaan u baaqayaa marka qof kasto musharaxiintii hore ka mid ah ama kuwa cusub inay ka qayb qaataan tartanka. waxaan si xushmad leh ugu codsanayaa guddiga qabanqaabada doorashooyinka iyo guddoomiyaha gacalba in haddii ay suuragal tahay waqtiga waxay ugu daraan dadka waayo aan naftay hadda waxaan lahaa alxamdulillah waxay ku dhaafeen meeshii markaan arkay inay xoogaa weli saastaan maas ka soo carrar maanta waxaan rajaynayaa dad badan inay kasoo qayb qaataan hawshan waa hawl noo taal. hamiinka xaleynta ayaa waxaa isna shahaadadiisa qaatay musharax madaxweyne Axmed Cabdilaahi Samatar waxaana ay guud ahaan musharaxiintu muujiyeen dareen mida kaasi ay ku doonayaan inay isu soo taagaan xilkan qofka ku guuleystana guud ahaantooda waxay ballan qaadeen inay si wanaagsan ula shaqeynayaan. Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuuso Mareeb.